السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلك أنا قد داونيسان ونيوزك تي في. sida aad ogtiin horta maanta waxaan idin wadnaa ama aan idin hana sir fakatay. Sir baa soo fakatay laakiin yaa qaban kara hede. Waa may wixii social media mar soo galo waa sidee u soo galeen. Cid ka bixin kartaa jirin. Yaa qof walbana afku iska soo furanaya ma fahantay. Marka sirta fakata aan idin hayno wax kala ma aha. Yaa maanta sirta aan idin haynaya waxay tahay in ninka lagu magacaabo fanaankeena caanka ah Omar Barbar waa nin la yaqaano sida aan ognahay inta badan dadka laakiin ay ogeen waa nin xaasla oo Ilaahay ku mismadiday caruur haysto oo iska maasha Allah iska dhaqan laakiin maxay kugu tartaa haddii marba ninkaaga uu kula gooynayo dhibaato meesan ahayn teeda kaleete nin naag qabo yaa oo garanaynin naagtii reerkiisii soo dhibaato maaha caadi buu qabaa ilmo bay u haysaaba caadi buu qabaa ilmo bay u haysaa hooyadiis way garanaysaa aabiis garanaysaa laakiin ma garanayso gabdhaha la dhashay kale wuxuu ugu sheekeeyay gabdho badan baa la dhashay boqolaalo baa la dhashay digaran ma aabe baa naaga badnaa malaha saas uu ku yiri horta sidaan ognahay qofku markuu fanaan yahay dumarka hadii xataa uu 3 uu qabo way iska rabaan inuu 4 ka dhigto way iska rabaanba yaa danka malaha way rabaan inuu 4 ka dhigto yaa sababto saas uu loo sameeynaa waxay tahay waa fanaani ku raacaysa ninkan waa caan haduu ku guursado caan baa noqonaysaa inta bay ka tahay maana kama aha naxariis ninkan Omar Barbar xaas kale ayaa u degan meelahan kaleete isheeg Mareykanka iyo dhulka tu kale meelahan buu ku qabaayo ilmo oo haysa laakiin taa lama ogadi tan kale la oginta ilmaha haysa hooyadiis way ogtahay laakiin gabadha walaalahay Omar Barbar walaalihiis ma garanayso habeenkii markuu seexdo habeenkii markaa seexato ayuu sabirka iska bedelay wuxuu saartaa sabirkii kala naagta markay soo kacdana sabirkeedii buu saartaa WhatsApp-ka dhulka markay seexatana waa laga bedelaa tan kala la saaraya waqtiga taas la qaadanay inta tan hurdiis waa jaanis mag kadib maxaa dhacay naagtii markii dambe waa ogaanaysaa laaziman because marba dabaas weedkaysid deesoo iska jiifa eray iska soo dhici karaa moogta yaa kadibna waa ku qabanaysaa on maxay taa waxan waa walaashi ninka waa waashta waa walaashi wallaahi oo bilaahi oo talaa waa walaashi di walaasha ha ahaatee inaysan ahayn Ilaahay wuu ku jeedo subxaanahu wa ta'ala waxaadna ku dhaaranaysaa 3 magac Ilaahay bini aadan adigoo kala dartiis waa dhigi kartaa maqaldamo waa Ilaahay garaale noqo dhaar baa afka furatay been baa sheegtay walaasha ma ahan waxaaskaagi labaad Ilaah baa afar ku baneeyay waay maxaa dhaar afaaraas ku galiyay naagta ma adiga qoomsa ayada ku qabto taa iiga jawaaba naagta ma ninka ayada qabto mise asiga qabo teeda kale ninka Ilaah baa afar u baneeyay inay iswaashay iskurbeeso ma baahanba inuu asigana dhaar iyo waxaan loo joogin beenan soconaynin raad balheen inuu ku dhaarto taana waa qalad soo been raad ma leh hora loogu maamaaho loogu heeso ninka Omar Barbar la dhahayo waa fanaankeena horta kulay naagta uu qabo caruurta u heesana laaziman nin fanaan kuguma ekaanayo xataa haduusan naagta asir rabin ayada rabto isku qasbiso sankiska gelinayso xoog sandirq ma dhijir sandulle yaa maxaa la sameyn karaa asigana dhaar buu afka furanayaa wallaahi sugurayaa soo dhibaato ma asxaabta iga daawanayso newska TV fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar share like commenting na waxagiina
insha allah tan iyo tan kusoo xigtana daawasho wacan sidaa iyo nabadgelyo.